halkan aan ku sugannahay waa Cigaal International Airport waxaa la soo dhaweynayaa mid ka mid ah gabdhaha social media aadka uga caanka oo aad loo wada yaqaano waana boqoradda isteelka waxaa soo dibad baxa u sameeynayna oo waxaa soo xiiqa aad arkaysaan oo waxaa soo gawaadhi saraxan aad u arkaysaan oo waxaa soo dad qalbi wanaagsan aad u arkaysaan kulli waa walaasheen muxuu haayay boqoradda isteelka Maariya Abshir ama dumaashideen kolba soo taqaanaan oo garanaysaa runtii qof aad iyo aad u nasiib badan sidoo kale qof aad u wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo aniga laftirkaygu aad u taageero dumaashinimo iyo walaaltinimo iyo waxaas oo dhan marka laga tago runtii taageero caadi ah oo ahay garanaysaa marka waxaan leeyahay walaashay oo kugu soo dhaweynaa magaalada Hargeysa gabadhi kulliba dhalasho maaha waa dhaxdin marka waxaan ku leenahay ku soo dhawow durriyadii reer Somaliland oo gacmo furan kugu soo dhaweynaysa dumaashi waa idinkaas maanta waxaan taaganahay madal qurux badan waxaan soo dhaweynaynaa dhammaanteen dumaashideen boqoradda isteelka waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada Hargeysa si qurux badan baa lagu soo dhaweynayaa hadday soo baxaysaa Allahumma salli ala Muhammad joogiguna waa degan yahay dareen gooniina way noo leedahay walaalkaad sheegayso walaalkayna farxadiisa waan la qaadanaa oon kala qayb galanaa dumaashideena waan u taaganay inaan soo dhaweyno welcome baan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad maanta dareenkayga maasha Allah farxad fara badan waxaanu halkan u taaganahay soo dhaweynta dumaashida iyo oon leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii iyo ummadiiba macawdaygaagii wixiiba oo halkan jooga soo dhawow aan leenahay horta dareenkayga ashcuurteeda lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay anigu burco waxaan uga imi si aan u soo dhaweeyo dumaashida wacan boqoradda isteelka ama Maariya Axmed Maxamed si dadku yaqaanaan waxaan leeyahay dumaashi dadku jecel ku soo dhawow islaamku jecel ku soo dhawow dalku jecel ku soo dhawow reerku jecel ku soo dhawow astaano ku jecel ku soo dhawow 7 saacadood baan soo socday imka Muqdisho ma ka soo duushay wan hawr bay soo soconaysa laakiin 7 saacadood baan soo socday waxaan leeyahay ku soo dhawow hooyga fanka iyo suugaanta Hargeysa Somaliland dareen gaar ah ayadu haysabaan dareen gaar iyo farxad gaar ah waa Somaliland dhan dumaashidood waxaan leenahay annaga waxa ugu ballanaa in airport ka soo dejiyo damarwada wayna soo gaadhay waxa weeyaan wada sugaynay wax weyn dadka aadka u qurux badan aadka u badan ay wada sugayeen wayna soo gaadhay alxamdulillah baan leenahay ilaahay wax weey si khayr leh oo qurux badan way noogu dhameeyay alxamdulillah baan leenahay kullu ducada xaqiina horta mahad waxay u sugnaataa Allah subhanahu wa ta'ala oo suurtageliyay in aan halkan ku wada kulanno tan xigta waxaad maad celinayaa seegiga oo ii diyaariyay soo dhaweynta aad u qurux badan waxa kale u maad celinayaa dhalinyarada aad ku qurux badan oo isku soo hooshay aan soo dhaweynteeda maanta oo dhan inta ii taagnaa waxa idin leeyahay maasantihiin waxa rkaftan daa ku darsadana caruusada hadal badan looma ogole waxa kale u maad celinayaa dhalinyarada aad ku qurux badan oo isku soo hooshay aan soo dhaweynteeda maanta oo dhan inta ii taagnaa waxa idin leeyahay maasantihiin waxa rkaftan daa ku darsadana caruusada hadal badan looma ogole